munaasabada lagu soo bandhigay Buuga Hilinka Guusha ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyihii hore ee kastamka magaalada Berbera xogayaha xisbiga wadani qoraayo aqoon-yahano dhalinyaro iyo Cabdikariin Axmed Mooge oo u ololeeya la dagaalanka qabyaaladda ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay qoraaga Buuga la magac baxay Hilinka Guusha oo qoray qoraa Farxaan Maxamed Xasan Ragad waxaana uu ka waramay waxyaabaha uu tilmaamayo buugan uu qoray kala buugan Hilinka Guusha runtii xaalado kala duwan buu soo maray waana buug aan ugu talagalay in daayarta iyo dhalinyarada aan soo bandhigo waxay ahayd fikir in badan aan ururiyay waxay ahayd qoraallo badan aan kaydiyay taariikho badan aan wax badan aan soo arkay inta shaqo noqoto iyo haddii weerarnimo noqoto iyo haddii baaris noqoto runtii waa farxad caawa aan halkan kusoo daafurayo mana qiyaasi karayo farxadda intaa leeg inaan habeen kan caawa buuggii aan halkan ku daafurayno runtii buugga markaan qori iskamaan qorin sababta aan qoro waxay ahayd in dhalinyaradeennu guulaysato ay noloshooda ku guulaystaan guushaas oo ahayd mid aakhira iyo mid adduunyaba anigoo mar walba xooga saaraya inay ku guulaystaan geesta kalena waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee kastamka magaalada Berbera xogayaha xisbiga wadani iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadaasi waxaana ay u mahadnaqeen qoraaga buugani noloshan aynu ku noolnahay qofka da'yarta dhalinyarta iyo waayeel iyo da'yarba haddii aanay qorshayn oo aanay qaabayn oo aanay qorshe ka yeelan runtii dib u dhac weyn oo xagga nolosha ah oo qayrkeen aynu kaga hadhnay Afrika ahaan iyo Soomaali ahaanba bay nagu dhacaysaa si kooban Buuga oraahdu wato oo Hilinka Guusha u biximayno guul maxay tahay hilinku waa mid nooceeya hore in looga sheekeeyo baan filaya kuwa nolosha ku guulaystay waa kuwe sifooyin nooceeyay leeyihiin aadamuhu muxuu nolosha u joogaa su'aalaha iyo kuwa kale fara badan baa gabagabadii waxa isaguna halkaasi ka hadlay Cabdikariin Axmed Mooge oo u ololeeya la dagaalanka qabyaaladda waxaana uu tilmaamay in buugani waxyaabo badan ka tari doono bulshada reer Soomaaliland ama hablo ama inamo dalkan hadaa rabtaan in wanaagsanaado wax ka bilaabeen inuu wanaagsanaan marka hadaa rabto in dalkani hagaago dadaalada wanaagsan ee socda ku mashquul rajabeer geedba haddaad wax kala garan weydo dadaaladaas socdo dhan aan mutadawacnimada iyo kaydka iyo tacabka iyo aan geli karayna jaamacadaada iska dhigo wax barada wax noqoday xamse qurbaani telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa.